شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أولا كسان الدعوة ديال هالكان وجنالك كبcinta garaadka carruurta. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqato janalkeena ha ilowin subscribe daadi kadibna aad furdo calaamada gambaleelka si uu kuu soo gaaraan qisooyinka jimcada siina gaarisa asxaabteeda oo jecel qisooyinka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada. intaas kadib maanta waxaan idin haynaa qisadii asxaabul ukhdud waxayna ka kooban tahay 3 qaybood. maanta waxaan idin sheegaynaa qaybtii koowaad ee waxaan naga sheekan doonaa walaalkan soo dhawow. waxaan dhawahay qisadeena maanta waxay ka bilaabanaysaa waxaa jiri jiray nin boqor ah oo waddan dhan xukumi jiray. boqorkaasi wuxuu lahaa saaxiroole. boqorka dadku wuxuu ugu yeeri jiray inay asigu gartaan rabbigood. waxaa dhacday in saaxiroole cilmi sixir ku qaabilsanaa inuu u tago boqorka wuxuuna ku dhahay anigu waan duqoobay, waxaa laga yaabaa inay ajishayso dhowdahay. wuxuu dhahay saaxiroole waxaa ii keentaa wiil fahmad badan oo fariid badan ah. boqorkii wuu soo helay wuxuuna u geeyay saaxiroolihii si uu u barto sixirka. wiilkii waddada maraya wuxuu la kulmi jiray sheekh oo mu'min ilaahay ku xirnaa. sheekh ayaa yidhi maalin kasta waa martaa waana siid martaa, maxaad qabataa? wiilka ayaa yidhi cilmiga ayaa sixirka bartaa, boqorkaana ii soo diray. sheekh ayaa yidhi haddii aan aniga cilmi kale ugu daro ka waran? wiilka ayaa yidhi hagaag, laakiin anigu waqti ma hayo. waqtiga waxaan ugu talagalay in aan sixirka barto. wiilka sheekh ayaa yidhi haddii uu saaxiroolaha ku dhaho maxaad soo daaday? waxaa dhahdaa hooyo ayaan caawinayay. haddii hooyo ku dhahdo maxaad usoo daahday? waxaa dhahdaa saaxiroolaha agtiisa ayaa fariistay. sheekhii wuxuu barayay ilaahay macrifadiisa, inuu koonka taliyo, inuu wax dilo oon nooleeyo. saaxiroolaha wuxuu barayay cilmu sixir iyo inuu boqorka la caabudo. maalin maalmaha ka mid ah wiilka dariiqa marayay waxaa fariistay liibaax aad u weyn. dadkan wadada wuu ka xiray. wiilkii wuxuu is dhahay maanta ayaa kala ogaanaa labada diin aa barto midka saxda ah oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay. wuxuu soo qaatay dhagax wuxuuna dhahay bismillaah, wuxuuna ku tuuray liibaaxii. isla markii liibaaxii waa uu dhintay. wiilkii wuxuu u tagay wasiirkii wuxuuna u tagay sheekii wuxuuna ku dhahay aniga maanta waxaan soo ogaaday inuu diinta islaamka sax yahay oo cilmu sixir baadil yahay. sheekh ayaa yidhi maanta adiga ayaa ii karaamad badan, waxaad aragtay aayad waa loo imtixaami doonaa ay sheegin iska adkayso. wiilka ayaa yidhi haye. muddo kadib waxaa dhintay saaxiroolihii. wiilkii buu bedelay booskii saaxiroolaha, laakiin dadka sixirka kuma xukumi jirin, wuxuu ka xukumi jiray ilaahay macrifadiisii. dadku waxay barteen inuu wiilka ducadiisa la aqbalo, wiilkan la aqbalo. kadib dadkan wasiirka ayaa maalin maalmaha kamid u imaaday asigoo rabo indhaha inuu kaafiyo, laakiin wiilka shardi ayuu ku xiray. shardigaasoo ah inuu asiga ilaahay rumeeyo, kadibna ilaah u baryo. wuu yeelay wasiirkii. kadib marka uu yeelay indhaha ayaa markii loo soo celiyey. kadibna maalintii xigta wasiirka ayaa u tagay boqorkii asigoo indhihiis u fiican, la socod wanaagsan. qaybtii dambe ee qisadii asxaabul ukhdud. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.